kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku hambalyeynayno wasiirka wasaaradda dhaqanka diinta iyo awqaafta ee Djibouti aadan xasan aadan belelo iyo Dr. Muhammad Daahir Faarax Jile oo ah suxufiyad ka howlgasha telefishinka qaranka midowga Afrika isla mar ahaantaasina ka ah ambassador sharafeed ama goodwill ambassador dowladda Ghana oo uu meherkoodu ka qabsoomay hotel Sheraton ee magaalada Djibouti waxaan ugu ducaynaynaa ducadii rasuulka barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa baynakuma bil khayr aw fi khayr balanahay sidaas si lamid ah hambalyo aan la soo koobi karin iyaguna waxa halkan u marinaya wasiir aadan iyo Dr. Muhammad mari khadar maxamed akule ayaa isna hambalyo taasi lamid ah diraya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن بدن با محوها يعني مهرك للدول يتهنيدك للدول. غير كل لقونا استيل لقونا قادو وذكرين نبض قلا أنا تيفي إذا عد يقرار بكوش يغني. لكن أنا جو حيل العوا واحد إلى ريجنال بتشة أما هير قبل. هير قبل ونديريا ولا شيء مها ظاهر فارح تري إيو وذكي إذا عصب. مدن آدم حسن آدم oo runtii isaguna inaan aad saaxiib ugu nahay xagga afka Soomaaliga iyo waliba ben ama Somali ben in badanna aanu muxuu ahaay dabeecad ahaan shirar badan wada galnay aad aan ugu faraxsanahay runtii calafka muxuu ahaay laba qof oo aad u qaaliya isu galay waxaan u rajaynayaa inay noqdaan reerkii lagu nastay lagu nagaado kullayba bahda warbaahintu ama Ethiopia ha joogto ama Kenya ama muxuu ahaay Djibouti ama Somaliland hal ku dhagib niyada oo ay leeyihiin baa jira laakiin waxaan ka horeysiinayaa ducadii nabigeena alayhi salatu wasalaam barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa baynahuma bil khayr aw fil khayr waxaan inta ku xigsiinayaa oo kale in meherka bahda warbaahinta Somaliland guud ahaantood hambaliyadaasi ay u soo tabinayaan bahda qoraalka telefishinada iyo idaacadaha intuba anagu iyo dhowr qof oo kale kuleyntii nasiibka u yeelatay fursadan ayuun baan ahayn hambaliyo ayaan aadan iyo mahaleey markana aadan waxaan xasuusinayaa haddii meherka hambaliyooyinku intay socdaan muhi soo horeyso waad iska fahmi karaysaa bahda warbaahinta inta ku jirta mar walba mudanaha marwada xagga laga horeysay inkastoo Djibouti caadi ba tahay mudanayaasha marweyn bay ka horeysaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Hussein Abdullahi Dirsi aad baan u salaaminaa walaashayo Muhammad Daahir Faarax Jile arooskeeda iyo meherkeeda ka dhacay magaalada Djibouti iyo saygeeda aadan xasan aadan oo ah wasiir ka mid ah wasaaradda dalka Djibouti runtii waa muhammadiyadna oo in badan nala soo shaqeynayay in badan afreey nala soo shaqeyn doonto oo ahayd qof aad shaqada ugu firfircoon akhyaar ah oo dadka meesha mihnada ay wada hayaan dhammaan la wada saaxiibahay walaashay waxaan leenahay aad iyo aad baan ku salaaminaa waxaan ku rajaynaynaa in reerkaagu uu noqdo reerkii lagu nastay lagu nagaado ubad khayr qabanayo iyo baydkaasiyo adiga iyo sayga guusatiga waan isku wada ducaynaynaa dhammaantiin tifatiraha guud ee TV-ga qaranka Maxamed Xuseen Cali ayaa isna hambaliyadiisa diraya aad iyo aad baan maxamed ciise aadan u mahadsan tahay barnaamijkan aad soo agaasintay ee soo abaabushay ee dhammaan howlwadeenadii madaxdii iyo shaqaalihii telefishinka rag iyo dumarba laga wada qayb qaadanayo iyo wasaaradaba marka hore aan ku bilaabo oo aan idhaahdo barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa baynakuma fil khayr aw min khayr ducadii rasuulkeena suuban ee Muhammad ee nabadgeliyo iyo naxariisi korkiisa haatee
oo aan u leeyahay muha daahir faarax jire oo ka mid ahayd hablaha ugu cadcad ee rugcadaaga ah ee telefishinka Somaliland inan iyadu leh karti aanan qiimeyn karin ama aanan halkan ka sheekaro macantii kartida ay leedahay aanan qiyaasi karin dabeecad iyo dadnimo intaba isku darsatay dadaal badnayd oo aad u dadaal badnayd yaanan oran oo aad u dadaal badan ilaa maantada aynu joogno oo firfircoonida ay leedahay dad fara badan ay kaga daydeen inan aan ilaahay uga baryano in halka ay maanta taagan tahay uu meel ka sii sareeyo koreeya gaarsiiyo inan u damqan jirtay dadka daciifka ah oo markasta ay waxayso ay siin jirtay iyada iyo saygeeda cusub aadan xasan aadan oo ah wasiirka dhaqanka diinta iyo awqaafta ee dalka jamhuuriyadda Djibouti oo meherkooduna uu ka dhacay dalka Djibouti oo si weyn loogu qabtay halkaasi madax fara badan oo Soomaaliland ka tirsan iyo madax Djibouti ka tirsan iyo dad dibadda uga yimid intuba ay ka qayb galeen muhi kartidaasi firfircoonidaasi iyo dadaal badnaanteeda qiimaha ilaahay waata ay ku mutaysatay in iyadoo suxufiyad ah ay noqoto ay madax u noqoto suxufiyiinta Afrika oo xaruntoodu Addis Ababa ay tahay haddana ay ka gudubto oo ay madax ka noqoto ee dalka Ghana oo waliba in dhinaca xuquuqda aadamaha ay wakiil uga noqoto dalkaasi waxaan u sii rajaynaynaa maanta iyada oo meel masabkiisu uu sareeyo ay taagan tahay in ilaahay meel kale oo ka sii sareysa ku-xigeenka madaxa barnaamijyada cabdirasaaq cismaan maxamed ayaa isna hambalyataasi la midadiraya. السلام عليكم ورحمة الله كلنتي ونحسن داوديال وحنا هلكن همبريه يبقى نقدر يا مهركا ولاشان مهاب ظاهر فارح جلد iyo aadan xasan aadan oo wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka jamhuuriyadda Djibouti oo ka dhacay dalkaasi jamhuuriyadda Djibouti anoo hambaliyo gaar ah oo kaliya laabo diraya mas'uuliyiintaasi oo muhaawiriye ka soo waxay haysay xilal badan oo mandaqada geeska Afrika miisaan ku leh isaguna wax weeye in siyaasi oo dalka aynu dariska nahay Djibouti xil weyn ka haya waxa uu sidoo kale ahaan dhalinyaro oo runtii qoraagi kamid ahaa taariikhda ururin jiray dhaqanka ururin jiray arrimaha bulshada ku dhex jiro ku tilmaanay inuu Djibouti markii la joogay wasiirka dhalinyarada geeska oo markaasi aad ugu firfircoon ee wax ka soo qabtay muhana sharaxaad badan uma baahna miisaanka ay ku taagan tahay Soomaaliland iyo mandaqada geeska runtii markii la soo sheegay waxaan ku tilmaamay inuu yahay arooska qarniga markaasi haddana Afrika noqonaya sababtoo ah in badan ma halkan isugu hambaliyeynay marka waxaan ugu wanaagsanaa kuwa iyaga ugaasi ay ku jiraan inta bari ilaa galbeed Soomaaliland koobi jiray loo jiray xidid bay sameeyeen iyo gacal bay sameeyeen tan way gacal dhaafto way qarnimo sameeyeen runtii aad baan ugu hambaliyeynayaa Djibouti iyo waliba Soomaaliland oo labadaba miisaan culus meerkan uu ku leeyahay telefishinka qaranka Soomaaliland miisaan ugu leeyahay waxaan leeyahay isku kiin barakeeyo ubad qeyb qabahayda kala siiyo hadiga dhiga reerkii lagu nastay lagu nagaado runtii safiirkaasi muhana waxaan leenahay Djibouti safiiro badan ma ugu lahayn kii ugu weynaa imkaan ku yeelanay imkaan madaxweynaha iyo aad baan ugu hambaliyeynayaa dhammaan mas'uuliyiinta Djibouti oo dhan xiriirka wanaagsan ee dhaxmaray wariyaalkan waad naga soo dooni doontaan idinkana waan idin soo dhaweyn doonaa cid kasta oo wariyaal demarkaasi anaga Djibouti anaga dooni doonay mas'uuliyiinta idiga soo doonaan bal aad baan ugu hambaliyeynayaa sidaasi si la mid ah isna waxaa diraya ugaas maxamed macabir oo ah madaxa satellite-ka TV-ga qaranka hambaliyadii wasaaradii waa isdaba haysataa ilaa bilow ilaa dhammaad way soconaysaa anigu waan soo yaro koobayaa Dr. Maha iyo Minister Aadan waxaan leeyahay guriga dhigro waqayna ka dhigo waan idin soo ducaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaah aroos waa aroos waa aroos waa aroos alwaas ka baxaya waa aroos waa aroos waa aroos waa aroos waa aroos والله أدرس جعيل والله بمخادي والله أدرس جعيل والله بمخادي وأذان ومها والله بحدنا والله بأسلوب إذا بيحشد له لي أخلاق والله ومها وأذان
أسلوب إذا بيحشد لابد لي أخلاق ديه كالقعو لا إلمين ترى فرحة أولوليه وأقوب شعيل إيو وبحلقود وأقل شعيل إيو ذوبي وأقوب شعيل إيو وبحلقود وأقل شعيل إيو ذوبي إنديه كالقعو ليل مين ترى فرحة أولوليه وأقوب شعيل إيو وبحلقود وأقل شعيل إيو ذوبي وأقوب شعيل إيو وبحلقود وأقل شعيل إيو ذوبي بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعيقة الله يرى عبد الكريم فؤاد علي وكم مقع دير قرني وحن هلكن سلام ودريا أروسك يا أروسدا مها يا آدم أو أن لا يهي أروسكي نحن نقدم برارا يبرواقة إلى هنا هيدو كو أسترو لبا إسوته أولي استعلاضنا أهارا haddaba labadii jacayl ololaysa ee is aroostaba alla jeceliye allow ubadka sii adduun aad u badan iyo annaguna dhammaan aamiinta nidhe reer Jabuuti aamiinta dhahaydinku أنا مقعد بهاي جماعة وعلي إبراهيم وحن هكذا هم بريو قدر يا دومي مهدها الفارح تري إيو سيجيدا آدم حسن آدم بللو ومهركو كدعي مقالة جبوتي وحان الله هاي دعاء رسولك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالخير heestan ducada iyo amaantada lahayd ku kasbatay heestuna waxay ahayd geeyahay milaaxi iyo daawuska midabkiyo malyan qurux haween iyo muuqi xuural caynta leh meedad beercad geelo meerahawd ku naaxdiyo lagu mood midhi canab macbuudkii kuuma bilic kugu manaystay mar la arag haldhaa iyo madhaafaan suleekhay miyiriyo aqoonay maskax caafimaadey allow meel xun kaahay beejkii labaadna heestu waxay tidhi gaari yahay mudeeciyo maandeeq baari geeloo boqol lagaga maarmaay maha quruxu gaaroo habla laga majeertaay xiise iga mudnaatayoo xasuusta igu miratayee ishu milicsigaagii maamuusku laabtii gobta mahadnaqeedii maanku qiimahaagii muunadii waxaa tahay mayay subax daruuraha jeegaan ismarisiyo macaankii xareedii maaxdii togdheer iyo muuqa daalo aragtida moodhalkii haweenkay mugdi laguma dhaafaay allow meel xun kaahay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay walaashay ducadeydii wuu aqbalayo halkii aan niyadaygu hayay habeenkaa la jeclaa way tagtay oo iminka waxay noqotay marwada amiirka diinta iyo awqaafta dhaqanka iyo suugaanta dalkan walaalaha iyo jaarkaba nahay ee Jabuuti labada isu hura naftee isantee warkoodu hagaagaya hirgala haleena libtoo raaxada harsada haleena libtoo raaxada harsada labada isu hura naftee ishantee warkoodu hagaagaya hirgala haleena libtoo raaxada harsada haleena libtoo raaxada harsada mideeyahanko xubbiga isu haba xurmana hagarlii dhabti kala helahaa xurmana hagarlii dhabti kala helaa mideeyahanko xubbiga isu haba xurmana hagarlii dhabti kala helahaa xurmana hagarlii dhabti kala helaa rabbow hoodiyo hibada dhaxalsii rabbow hadimiyo hantaaqda ka dhow hoygooda ka yel mid haybad laho awlaad hirashale rabbow hibe hoygooda ka yel mid haybad laho awlaad hirashale rabbow hibe
hirasha leh rabbuu hiibiyey muhahooda badaney qalbigii jacaylka ubaxiyo udgooney qurux hooyadeedey muhahooda badaney qalbigii jacaylka ubaxiyo udgooney qurux hooyadeedey saqa wanaagiyo idigiyo asluubtiyo saqa wanaagiyo idigiyo asluubtiyo kii dhaqanka qanatee xishood loo hibeeyaa dhaqanka qanatee xishood loo hibeeyaa irka qoraxda muuqday midabkii ka hodane irka qoraxda muuqday midabkii ka hodane ورعين بكيدي ورعين هبكيدي كلمة لو هجوجا ورعين بكيدي ورعين هبكيدي كلمة لو هجوجا العية ضروري أدعية هردوكلا يلبكي شركايجي البولة خبرتيسا العية ضروري أدعية هردوكلا يلبكي شركايجي البولة خبرتيسا وضعي نصيبي فرصتكي هوينكا وضعي نصيبي فرصتكي هوينكا عركنا بددوني ديو نبددوني ديو خوي لغو نغادا نبددوني ديو نبددوني ديو خوي لغو نغادا إركا قرحتا مقوداي مدبتي كهوداني إركا قرحتا مقوداي مدبتي كهوداني ورعين بكيدي ورعين هبكيدي كما لو هجوجا ورعين بكيدي ورعين هبكيدي كما لو هجوجا sad iyo deeq kaamilo kariimku na siiyey iyo
hanadnoodhasho kalyalaab lagu farxo korokoba jaamaco sad iyo deeq kaamilo kariimkuna siiyey iyo hormow hanadnoodhasho kalyalaab lagu farxo korokoba jaamaco ku diirsanay dhalashadaado kitaabka qur-aanka iyo tawxiidkan kugu anqarinaye korokoba jaamaco ku diirsanay dhalashadaado kitaabka qur-aanka iyo tawxiidkan kugu anqarinaye korokoba jaamaco muhiyo aadanoo ka siman indheer gaaraashiyo kartida karaamiyo sharafna mudan weladkii ka dhex uumayo muhiyo aadanoo ka siman indheer gaaraashiyo kartida karaamiyo sharafna mudan weladkii ka dhex uumayo halkiyo dadkaba wiilanfaxa ku reeyaan waalidadu kariimka kaa dhige korokoba jaamaco dadkiyo dalkaba wiilanfaxa ku reeyaan waalidadu kariimka kaa dhige korokoba jaamaco kacoo kaynaani socod korokoba jaamaco kacoo diintaada baro korokoba jaamaco hidiyo dhaqankana kasbo korokoba jaamaco qayrkaa ka dhex muuqawo korokoba jaamaco qayrkaa ka dhex muuqawo korokoba jaamaco kacoo kaynaani socod korokoba jaamaco kacoo diintaada baro korokoba jaamaco hidiyo dhaqankana kasbo korokoba jaamaco qayrkaa ka dhex muuqawo korokoba jaamaco qayrkaa ka dhex muuqawo korokoba jaamaco kacoo kaynaani socod korokoba jaamaco kacoo diintaada baro korokoba jaamaco hidiyo dhaqankana kasbo korokoba jaamaco qayrkaa ka dhex muuqawo 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 korokoba jaamaco muhaqooda badaney qalbigii jacaylka ubaxiyo udgooney qurux hooyadeede muhaqooda badaney qalbigii jacaylka ubaxiyo udgooney qurux hooyadeede heesaqa wanaagiyo idigiyo asluubtiyo heesaqa wanaagiyo idigiyo asluubtiyo kii dhaqanka qanatee dhaqanka qanatee xishood loo hibeeyaa